oo dadka dhaxdooda ku jirtay oo maaragtay xukun degdeg intuu qaaday si maaragtay Oromo chance ku siiyo inay qabsadaan dhulal Soomaali ay leedahay ama meelaha Soomaalidu ay degan tahay. hadda maanta Baabile waxa ka socda waad u jeedaan, Mooyale waxa ka socda gobolka Dawa waa u jeedaan, gobolka Liibaan waad u jeedaan, Afartii iyo Oromadu waad u jeedaan, Benishangul iyo Oromadu waa u jeedaan, iyo Afarta maaragtay Harar iyo Oromadu waxa dhaxdooda ku jira waad u jeedaan. Ethiopia dhan baa gubanaysa, waxaana gubaya Oromo. waxaan dan iyo muraad ka lahayn dawladda dhexe. waxay mar walba ku andacoonayaan in ay ciidamada Liibooliska ay weerar ku soo qaadeen iyagoo raba inay ummadda xasuuqaan. aawe dawladda dhexe, aawe militariga dawladda. haddii meel Baabile u jirta Harar waxa soo fogeen, Jijiga waxa soo fogeen u jirta ummaddu islaaynays. aawe dawladda dhexe. waxa idin leeyahay Soomaaliyeed meesh waxba idima yaalaan. nimanka kon Oromada waxay rabaan inay maaragtay xoog ay ku maquuniyeen ummadda Soomaaliyeed. haddii ay karayna iyagoo ku andacoonaya mar walba in Liibooliska weerar ku soo qaaday. arrinka waxba kama jiraan. Oromadu ujeedadooda lama garanayo. maanta iyaga haysta dawladdii, iyaga baarlamaanka haysta, iyaga aqlabiyadda baarlamaanka iyaga haysta, prime ministerka waa iyagii, generaalada military waa iyagii, madaxweynaha waa iyagii. waxay rabaan iyadu intaas oo dhan haystaan, waxay rabaan inay baabiyaan ummadda Ethiopia. marka Oromadu ninka kan oo Abiy Ahmed isku magacaabay oo prime ministerka xaguu jira ma dhibkii isaga keenay dhib wadankii gudihiisa ma dibadda dhibka dibadda isaga keenay miya? waxaan isleeyahay dhibka dibadda ninka ma keenin. waxaa keenay dhibaato wadanka gudihiisa ka jirta ayaa la rabaa inuu qaboojiyo. dabka inuu demiyo ma rabo, isagaba hurinayay. wuxuu rabaa in Ethiopia meeshii ka baxdo. uu rabaa inuu maaragtay oo leftiyo waxaas inay qabsadaan ay ummadda dhibaato u keenayaan. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed yaan la isku fiirsanin, meel la isku fiirsadan ma joogto. nimanka kan waa niman maaragtay ay rabaan inay awood ku maquuniyaan ummadda Soomaaliyeed meesha joogta. waxay idin farayaa inay isku gurmataan, inay gacan isu siisaan sida iyagu isku gurmanayaan kuwooda Mareykan jooga, kuwooda Yurub jooga, kuwooda Afrika jooga, kuwooda jooga Ethiopia iyo meel walba kuwa jooga si isku gurmanayaan. Soomaaliyeed waxay idin farayaa inay isku gurmataan, inaad maaragtay isu heelisaan. maanta tan nimanka kan dan kale ma laha, ujeeddo kalena ma laha. ujeeddadoodii kaalay qabso meel ay Soomaali ay ku arkaan inay ka ciiriyaan ay qabsadaan ayay doonayaan. ninka kanna kama hadlayo dhibka oo hadda ka jira, dhibaatada hadda socota kama hadlayo. wuxuusan uga hadlaynin. wuxuu rabaa inuu chance siiyo Oromadu ay meesha qabsato, Oromadu ay ka saarto Soomaaliya, ay dhibka u geysato sida horeba u geysteen. muddo hadda 3 bilood uu joogaa. one day television intuu soo fadhiistay ama one day intuu maaragtay radio ka hadlay uu yiri dagaalka hal joojiyo, afkiisa lagama hayo. waayo isaga sidaa qaba yaa lagu khaldamin. ninka kan waxa weeye idinku waxaas leediin Ethiopia ayaa maaragtay ninkan u soo baxay. ninkan Ethiopia uma soo bixin, wuxuuna u soo baxay qowmiyadii uu ka dhashay Oromada. sida hadda u jeedaan aad maaragtay aad maqlayseen. Baabile baa la isku laaynayaa maanta. meel walba ummadda Ethiopia joogto waa la isku laayna. ninkan ka hadli maayo. waxaana dadka laaynay waa qoladiisii, waa beeshii uu ka dhashay, waa reerkiisii. waxa weeye Soomaaliyeed waxay idin leeyahay istaaga, isgarab qabta, meel walba joogtaan, gacmahaas qabsada. haddii iyagu ay ku midoobeen ina Oromo yihiin, annaga maxaa noo diiday inaan Soomaalinimada ku midoobno? maxaa noo diiday inay Soomaalinimada gacan isku qabsan? maxaa noo diiday inaan is caawin? maxaa noo diiday inaan isgarab istaagno? walaalayaal, haddii aad maaragtay iyagu hadda ay ku midoobeen inay maaragtay magacaasi ay maaragtay iyagu deeqay, annagana Soomaalinimada hana deeqdo. aanu wada istaagno, aan is caawinno. nimanka kaasi isku caawiyeen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaciigina waxaa la yidhaahdaa Baganaale.
midowdo saxalkii baxayo samaate soomaalidii midowdo saxalkii baxayo samaate من لبو سحبا سحل اللي باكيدا سحل من لبو سحبا سحل السحل 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 soomaalidii midowdo saxalkii baxayo samaate soomaalidii midowdo saxalkii baxayo samaate كاشيدو وينو فيكبو